بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن داوديال كسو dhawaada barnaamijka ganacsiga oo kaga imaanaya TV-ga isku xiraha ganacsiga ee BCTV xaruntiisa magaalada Muqdisho barnaamijka toddobaadkan waxa ugu marti ah Rasmi Mira Cali oo ah aasaasaha xarunta horumarinta qoyska ee Rasmi oo haweenka ay ku bartaan xirfadaha gacanta toddobaadkan barnaamijka waxa idin soo saartay anigoo Ikraam Shir Yusuf idin la socodsiin doonta Dooya Bakar aan noqdo Rasmi kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga ee BCTV oo ku dhawahay Ikraam Shir marka hore waxaad sharaxaad naga siisaa xilligii aad aastay xarunta horumarinta qoyska ee dumarka iyo xirfadaha xaruntaada ay bixiso maasan tahay xirfadaha xarunta ay bixiso aad u fara badan yihiin waxaa ka mid ah alansaarka kale make-upka sidoo kale cunno kale sidoo kale public speaking iyo waxyaabo fara badan ay qabataa oo ugu talagashay dumarka Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan xirfadahaasi waxaan la aasaasay 2018 ilaa haatan oo shaqeynaysa waa tahay marka aad aasaasid xaruntani wax walba waxay leeyihiin ahmiyad loo aasaaso fikradda kuugu dhalisay inaad xaruntan dumarka u qaaska aasaasto maxay ahayd wallahi ka ahmiyahan barta aniga jeclaay xirfadaha gacanta sida cilaanka kale inaan aad isku qorxiyo isnaanaasha iyo make-up kale maadaama gabdhihi aan ka mid ahayn waxa arkay fara badan oo baahi aad u badan u qabaan xirfadahan inay bartaan dan ulajeedka aan u aasaasayna waxay ahayd in ay ka faa'iideystaan maadaama wixii aan aqaano in guri kaliya aan la fadhiisto oo ila noqon weysay oo xalisare gabdhahan u baahan ugu faa'iideeyo waxyaabaha aad baratay xirfada aad bixiso muddo intee gabdhaha baranay ku qaadataa ama aad ugu talagashay inay ku bartaan wallahi muddo saas oo badan oo maanta la galin inta badan koorsoo inaa bixinaa oo nagu talagalnay muddo labo bilood ah saan cilaanka oo kale muddo 2 bilood ardayga soo saarnaa ardayga ugu maskaxda adag oo aan aad maskaxiisu adag tahayna waqti saas oo badan nagu sii qaadato muddo 3 bilood hal bilood dheeriya loogu daraa oo practical ah yaa idin ka caawiyo in aad intaas oo dumara aad bartaan xirfado kala duwan wallahi cidna nagama caawisa intaas oo dumar in aan wax barno kaliya waa mid anaga iyo macallimiinta waan iska kaashanay haweenka aad bartaan xirfadaha kala duwan markii ay dhameystaan barashada xirfadaha ma ka caawisaan in xarumo ganacsi ay furtaan aad iyo aad waxaan u sameynaa dhiirigelin aad u badan sidoo kale gabdhaha ay awoodo inay furtaan business ayaga oo gaar oo kale waan ku dhiirigelinaa waana garab istaagnaa gabdhaha aanan awoodin inay business u gaar ay furtaan waxaan sameynaa goobo bukiyaaro kale nala soo xiriiro kala ku xirnaa magaalada Muqdisho waxaa jira xarumo badan oo saaloona oo haween badan ay furteen ma jiraan saaloona xaruntiina ku xiran oo aad xiriir leedihiin aad iyo aad saaloona aad fara badan jiro in la soo xiriira hadba dhanba haddii qaybta maqiyaadka kale looga baahdo kale alansaarka oo kale saaloona fara badan aad noola soo xiriiro aan xiriir la leeyahay jiro kuwaas amal waxaan sameynaa ardayda kaalmaha hore gala aan ku xirnaa si ayagana ugu qabsadaan sidoo ugu shaqeystaan xirfadda ay barteen cilaankii make-upka inta badan waa xirfadaha ay haweenka magaalada Muqdisho ku nool ay ku shaqeystaan iyadoo ay jirto shaqooyin fara badan oo ay qaban karaan haweenka maxaa u badiya haweenka in dhanka xirfadaha qurxinta u bataan isleedahay wallahi ani ahaan waxa leeyahay waa xirfadda kaliya ugu fudud maanta easy oo waxna lagu qabsan karo qofka nafsi ahaan hadii nafsidiisa ahaan lagu isku qurxin karo hadii xagga shaqada ahaan leeyahay uu ku shaqeysan karo intii aad ku jirtay xirfadani oo aad bareysay dumar fara badan ma jira waxa caqabada oo la kulanteen adiga tiimkaaga wallahi caqabad markii la dhaho kale caqabad waa iska imaanay because shaqo oo marka qabanaysid wax bila caqabad ah ma jiraan marka caqabado fara badan waa aragay sida in ardayga kale aad wax fahansiisid sidoo kale aad waqti ku qaadanay caqabad ay ku noqonaysaa marka alxamdulillah hada waa ku gudubnay marka laga yimaado adigoo maamulka xarunta ah macallimiinta kula shaqeeyaan waxaad ku qaadataa ardayda ku qalin jabisay oo aad siisaa mise waxaa jiraan macallimiin xarunta kula aasaasay oo kula soo bilaabay wallahi inta badan ardayda waan kala saarnaa oo laba qaybood loo kala bixiyaa kuwa kaalmaha hore galo kale waxaan sameynaa in qaab macallin ahaan u tababarnaa si hadhow casharadii ardayda kaleba ay u saacidaan
haweenka inta badan dad waxaaba niyada aada ugu jabaan marka dhan ganacsiga la yiraahdo oo waxaa laga yaabaa haddii ganacsi yar ay furato ay ku qasaarto ee iskaga harto xirfadahani dumarka ganacsiga marka ku abuuranayaan misana ka niyad jabaayo haddana isle ma soconayso maxaad lehi lahayd waxaan dhihi lahaa niyad jabka horta marba haddaad niyad jab la kulantid waxba ma qabsanaysid oo nafsad ahaantaadiyaaba aad iska niyad jabtay laakiin mar walba ku dadaal in shaygan biri markaa qabatid maalinka kale aa qaladid maalinka ku xiga in aad samaynaysid oo sida aad rabtid iyo hamigaaga uu ku suurtagalayo haddii aan su-aal kaftana ku weydiiyo inta badan qof walba wixii shaqadiisa ah marka la haleeyo uu ka xanaaqa maadaama tahay macalimaad haddana intaasoo arday soo saartay markaad aragto qof iclaan qaldan ama make up qaldan u marsan maxaa dareentaa والله كم حماد بكاس وحياة صدنا أنا قبل وصوّد المحنا بكاس وحاجة أرضي ما أنت هتو وح قلته بروز حالي ما وح قلدنا وح مسحة مرة بدي رجلنا أصلا يا ما أنت ما شاء الله بعد ذا شيء بالرئيس سدوا كله وكسي في عنانا يا ما تقف مرة قد رجلنا أصلا سدوا كله وكسي سدي هرو في عنا لكن هذا ترى إسلام مركي وحنا قلد آدي وكل حين يقول كل ورقة ده قف من يجيبوا قال وحهم يقولوا هاي لما برناه daawadayaal waxaad daawanaysaan barnaamijka ganacsiga ee kaga imaanaya TV-ga isku xiraa ganacsiga xaruntiisa magaalada Muqdisho barnaamijka toddobaadkan waxaa ugu martay Rasmi Mira Cali oo ah aasaasaha iyo maamulaha xarunta horumarinta qoyska ee Rasmi oo haween badan ay ka bartaan xirfadaha gacanta xaruntiina oo ku taala magaalada Muqdisho marka laga yimaado caasimada ma jiraan gobolada gabdhaha joogan ee jecel inay bartaan xirfadahan qaab ku gaarsiisaan casharada ay u baahan yihiin والله وجران فرق بدل وجعل حرفها قعنتا قبل هذا الجوجل على الصحراء تبدل وان أرجنا برت ولي ما نجارن إن شاء الله لكن ورجينا إن قيمة كذا لك قبل هذا إن جارسينا متشكلي أنا كويت عني rasmi markaan waxaan soo gaarnay qaybihii dambe barnaamijkeena ugu dambeyn waxaa jiraan gabdho badan oo waxbarashada dhanka heerka koowaad ee jaamacadda ka aflixeen ee haddana guryaha jooga kuwa oo ku guuldareystay in ay shaqooyinka ay haminayeen ay waayeen in gabdhahaas maxaa fariin u diraysaa والله قبلها سبحان الله هدي وحبرشدي حقيدي أتشقق كويسين أقله قلقا إن إسكفريستان معهن وأمنية جبتان إسكضي إن لنك حرفضوا طلعات وبضتان سي نفس الدين أعب حقوق قبسن كرتال واي حرفضوا وحقات وفود أنت بدنا شقل وقبسن كراو هذا كم هذا إعلان يا وقتي قالي قابك برنامج كانوا قلقي قادتي خلاص سنتين daawadayaal guud ahaan barnaamijka ganacsiga toddobaadkan waa naga intaa toddobaadkan barnaamijka waxaa martay ugaad Rasmi Mira Cali oo ah maamulaha xarunta horumarinta qoyska ee Rasmi barnaamijka Ikraam Bashir Yuusuf adina socodsiinaysa dhanka kaamirada iyo farsamada Yuusuf Qaasim dhamaantiin isku doon waxaan ilaalinaa sidaas nabadgelyo